marka aad ku guda jirto baraha bulshada waxaad arkaysaa wax badan oo aad kaaga yaabin doona isla markaana qaar aad ku qoslayso qaar aad ka naxayso qaarna aad la fajacayso dhacdooyinka qaar waa kuwo iska yeelyeela qaar waa kuwo si kam ah ku dhaca qaarna waxaaba kuu soo baxaysa inay yihiin waxyaabo la yaab leh isla markaana dhif iyo naadir ay tahay in bulshada dhexdeeda ay ka dhacaan barta TikTok markaad si gaar ahaaneed u dul istaagto Soomaalidu waxay u isticmaalaan sida aysan u isticmaali jirin Facebooka, Snapchatka, Instagramka, YouTubeka iyo baraha kale ee la midka ah waxaana bartan aad ugu badan dhaqan xumada waxaa bartan aad iyo aad faraha uga baxay dadkii la doonayay inay isdhowraan sida haweenka iyo dadkii waayeelka ah iyo dhalinyaradaba oo waxaaba kuu soo baxaysa mararka qaar heestii ahayd rag iyo dumar laysma dhaamo beerta ayaa lagu wada jiraa barta TikTok waxay caan ku tahay marka la eego isticmaalka Soomaalida kuwooda ugu badan in fadeexad qofba qofka kale uu ku raadiyo in qabyaalada lagu horiyo in gabadhu ay ku soo bandhigto jirkeeda meesha ay ugu qorxoon tahay si ay u hesho follow love iyo comment sidoo kalena waxaaba jira dad waaweyn allah weyn oo waaxid ah isla markaana iyagu waxyaabo anshax xumo ah bulshada dhexdeeda ku wada TikTok waxa uu sii xumaaday markii la bilaabay live-ka lacagta laga helayo oo qof kasta uu isku dayayo in live-kaas uu sameeyo qofba qof ayuu ku dhagan yahay waa uu garanayaa qofka uu ku dhagan yahay qaarnamaba is yaqaanaanba laakiin hawada ayaa qofba qofka kale uu kacaya qoysaska hadaladoodii ayaa la keenaa sawirro iyo muuqaalo vaar ah ayaa la keenaa waxaas oo dhanna waxa lagu raadinayo waxay tahay in views lagu helo sidoo kalena qofka shacbiyad badan uu ku helo laakiin dadku ma aaminsana iyadoo la asturan yahay wanaag la sheegayo in shacbiyad iyo views lagu heli karo waxaana aan la xaqiri karin inay jiraan dadku faraku tirisa oo rag iyo dumar isugu jira oo wadada wanaagsan haya isla markaana diinta dadka ku dhiirigeliya isla markaana meel walba oo aad ka gasho barta TikTok kaaga soo horbaxaya laakiin dadka sharta wada ayaa ka tira badan marka loo eego haddaba muuqaalkan ujeeddada ugu weyn ee aan u duubayo waxa ay tahay in ay jirto gabar lagu magacaabo Diyaa Degan taasi oo caan ka ah barta TikTok Diyaa ayaa si toosa jacayl waaliya ugu soo bandhigatay Sheekh Shantaay oo ah sheekh iminka haysta baraha bulshada isla markaana mar walba ku dhagan qaar ka mid ah dadka isticmaala barta TikTok iyo weliba baraha kale ee bulshada ee Soomaalidu ay sida weyn u isticmaalaan Diyaa ayaa waxay sheegtay in si kaftana aysan bulshada Soomaaliyeed erga uga dhiganaynin isla markaana ay raadisay meel kasta oo ay kala xiriiri karto Sheekh Shantaay laakiin ay u suuragali weysay waxay tiri waxa aan ku doortay Sheekh Shantaay inuu yahay nin go'aan adag dadka runta u sheega diinta aad ugu dhagan isla markaana waxay sheegtay in ay ka heshay quruxdiisa iyo dabeecadiisa laakiin ay follow dhahday follow backna uu soo dhihi waayay sidaa daraadeedna ay u go'aansatay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan in ay fariin u dirto taasi oo ah in loo soo raadiyo Sheekh Shantaay oo ay wacd ku marayso in ay guursan doonto wax walwal ah kama qabto gabadhan haddii uu xaas leeyahay in labaad ay ku noqoto haddii laba xaas uu leeyahayna in saddexaad ay ku noqoto haddii saddexaad uu leeyahayna afraad inay ku noqoto Diyaa ayaa ku dhaaratay in kaftan aysan ka ahayn oo bulshada hadalkeeda dhab ay u qaataan isla markaana looga ergeeyo Sheekh Shantaay oo ay u baahan tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo keeno ninba waayihiisa ayaa mar walba laga eegaye Sheekh Shantaay ma aqbali doonaa codsiga la yaabka leh ee gabadhan ay u soo jeedisay ee salka ku haya jacaylka mise waxa ay noqon doontaa xaaladda in gabadhaba uu ku dhago isla markaana uu ku karbaasho hadalladiisa adag ee aadka ay u dhibsadeen qaar badan oo ka mid a dadka isticmaala baraha bulshada waa tan Diyaa oo si toosa u soo bandhigaysa jacaylka ay u qabto Sheekh Shantaay iyo waxa ay ka doonayso qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندي سلام الصوماليين ميل بعد دافع عالم أجهد كيجي سجنتين واحد الله واحد انتهى ونكسن أوكي ما أنت واحد ودي جري ويكد وأنت وحي هرب واحد وطاعد سين واللي جاي انتان ميل سوفر يستوي واحد كم عد سنين مركب ما أنت واحد كرجينا عد سيجي جاي إن تحجي للدون تان أو سيدا إذا كقعد سيدنا أتيسا ما يدون تان إن شاء الله إن أوكي ما أنت محاوضة
maanta waxaan wada codsiga gacanaha dhan qabo warta waa nuxnuxoya laakiin markaan idinka codsado waxaan idin wadana idin sheego kulli dad badan waa soo caay doona dad badan baa waxay dhihi doonaan waa views raadis kulli abaya ama abooy waxa dhahdo waa ku kaliga wixii qalbigayga ka guuxayay ama aan in muddo qarsanayay waxaan go'aansaday maanta inaan banaanka soo dhigo okay wax maxay yihiin markaa ay ku socdaan yaa waa qofka loo wado qof kale maaha waxaan u wadaa sheekha weyn oo loo yaqaano yaa waa sheekha sheekh Shantaay videogaygu wuxuu ku socdaa sheekh Shantaay waxaan idinka codsanayaa inaad ii gaarsiisaan follow aan dhahay follow back ima uusan soo dhihin in hadduu follow back soo dhihi lahayna xagga luuqay waxayna maaragtay aan kala hadli lahaa laakiin inaan soo hadlo maanta waxaa sababay meel aan kala hadlo ama meel aan kala xiriir in aan waayo awgeeda dhowr mar aan la hadlay Instagram-ka waxba kama arag ma fahanteen marka maanta waxaan idinka codsanayaa videogan inaad ii gaarsiisaan okay sheekh Shantaay maxaan ka rabaa sheekh Shantaay waxaan ka rabaa idin sheegaa sheekh Shantaay wax kale kama rabo duqaas waan ka helay nimayaho sheekh Shantaay waan ka helay waxaan ka helay adeegiisa waxaan ka helay qaab hadalkiisa waxaan ka helay go'aamihiisa adag waxaan ka helay soo runta u sheegayo wallahi waxaan dhihi karaa sheekh loo baahnaa waayo inuu maaragtaa noo imaado maadaama nin adag uu yahayna waan ka helay waan jeclahay waan qarsaday in badan laakiin maanta waan qarsan waayo waxaan idin go'aansaday inaan idin soo bandhigo waxaan kale u sheegayaa sheekha hadduu aalada TikTok iska daa uu yiraahdo inaan madaxiisa u daayo hadduu xaasla yahay oo hal xaasla uu yahay inaan laba ku noqdo hadduu saddex xaasla yahayna inaan afar ku noqdo marka sheekha adna waxaan ka codsanayaa hadduu soo gaaro videogayga inaad ii soo jawaabto insha Allah asxaabta quruxda badan waxaan leeyahay ii gaarsiiya videogan waa idin salaamay waa dhacdooyinka la yaabka iyo amakaaga leh ee ka dhaca baraha bulshada gabadhan si asluub wanaagsan ayayba u soo bandhigtay rabitaankeeda oo waxay tiri waan qarsan waayey muddo badanna waan isku dayey inaan la xiriiro hase ahaatee waa ii soo horgeli weysay qof kastoo ii sahli kara xiriirkiisana hadda ayaan ka codsanayaa in arrintaasi uu iga caabiyo laakiin waxaa jiray gabdho iyagu u muuqday inay si kaftan ah iyo fawdo ah ay codsiyo noocan oo kale u soo jeediyeen waxaana ka mid ahayd gabar tiri sheekh Shantaay ayaa caruur iga dhalay sheekh Shantaay ayaan isqabi jirnay oo kirada xitaa uu iga bixin waayey taasi oo la mid ah dhacdooyin waaweyn oo lagu sameeyey rag badan oo caan ka ah baraha bulshada oo la doonayay in lagu sumcad dilo hase ahaatee sheekh Shantaay waa uu fahmay marka la fiiriyo baraha bulshada dad badan oo waxaa jira caan ah oo laga laadlaado islamarkaana ay iska laadlaadiyaan dumar iyo ragba dumarkana waxaa la sheegaa mararka qaar in lagu sumcad dilo ragga laakiin gabadhan hadalkeeda marka aad si tix raacdo waxay u eg tahay qof daacad ay ka tahay oo waxay leedahay xitaa gacmaha ayaan ka jaraynayaa weligay intaan meel soo fadhiistay codsi noocan oo kale ma aanan soo gudbin mana iga aha fawdo laakiin rabitaanka waa uu jiraa qofka wax jecelna waxaa la yidhaahdaa miir ma laha ilaa uu helo qofka uu jecel yahay haddaba haddii aad ka mid tahay dadka la dhacsan fariinta ay gabadha soo gudbisay waxaan kaa codsanayaa inaad la sii wadaagto fariintan asxaabtaada kale islamarkaana waxaa la doonayaa sida ay gabadhaba codsatay in muuqaalkan loo geeyo sheekh Shantaay si uu u garowsado la xawga jacaylka ee gabadhan ay la ildaran tahay garab istaagna ugu sameeyo jacaylkan ay keli ku tahay oo ay doonayso in dhinaceeda lagala qabto guud ahaan muuqaalkan intaas ayaan ku soo koobayaa xidigaha tube ayaad ka daawanaysay haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe dheh gambaleelka furo like dheh horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga like dheh muuqaalka qaybta commentiga fikirkaaga noogu reeb lana sii wadaag asxaabtaada ku jirta gruubyada whatsappka iyo facebooka mahadsan idiin ayaan idin leeyahay tiim xidigaha tube